kadib markii ay bilaabatay doorashada madaxtinimada dalka Kenya waxaa gebi ahaanba hakad galay isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka dhaxeeya gobolka Jubbada Hoose iyo dalka Kenya taasoo sababtay in ay saameyn ballaaran ku yeelato ganacsatada kala duwan ee ku xiran dalka Kenya ee magaalada Kismaayo iyo dadweynaha isaga kala goosho labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya wadayaasha gaadiidka isaga gudubta labada wadan ayaa ka hadlaya saameynta ay ku yeelatay doorashada madaxtinimada dalka Kenya. bismillaah alxamdulillaah waan dhowahay magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi waxaan ka shaqeeyaa saddexda xero Ifo iyo Xagadheer iyo Dhobley haddaan nahay gaadileed iyo dilaaley anaa hakad baan galay isku socodka gaadiidka labada meel Kenya iyo Soomaaliya ayadoo xuduudii la xiray ciidan badan la soo dhigay marka dadka aan rari jirnay ama alaabaha aan rari jirnay hakad weyn ayaa soo galay saameyn aad u ballaaran bay ku yeelatay oo xariyaha dhaab aan baawurta u rano waxaa dad qaxooti aad u fara badan waxayna ku xiran yihiin Kismaayo raashinka loo qaadaa bariiska burka caanaha xagga wuxuu ka mariyaa $7 Kismaayana wuxuu ka mariyaa 30 xoogaa inta u dhaxaysa waa dareemi kartaa magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdixukum Bedel Aleele waxaan ku magac dheerahay Ilka Case waxaan ka mid ah darawaliinta ka shaqeysata wadadan Dhobley ilaa iyo Kismaayo ilaa xariyaha qaxootiga bariyahan gaabsi baa jiray doorasho bilaabatay wadanka cabsi baa ka jirta waxaan qaadaynaa ma iska taaganahay wax amal loo ma jirto 8 bish ilaa maalinka maanta wax shaqo jirto ma jirto ilaa xuduud waa xiran tahay wax gali kara ma jiro dadka cabsi buu dareemaya nin walba wuxuu leeyahay wadnaha farta lagu hayaa maxaa leeyahay maxaa dhici doona wuxuu hakad ugu yahay baawurta halka ka baxaysa wadan furan baa markii hore gali jiray wadankii ma furo waa xiran yahay doorasho ka bilaabatay dadkii xagga jooga wadnaha farta ku hayaa maxaa dhici doona masii 2007 kale noqon doonta mise ma noqon doonto sida cabsi ay ku jirto dadka xagga jooga rabo inay soo daabulo hadii cabsi dhacdo hatta baradhadii hadda maanta xeeraysa kor bay u kacday baawurtii keeysa waxay yartay sida wax kale Bashiir Xaashi waxa uu ka mid yahay masaafuriinta gaadiid la'aanta ay ku haysato magaalada Kismaayo waxaana uu ka hadlay caqabadaha haysto. Bismillaah magacaygu waxa la yiraahdaa Bashiir Xaashi waxaan joogaa magaalada Kismaayo caqabad yaraan haysato oo ku saabsan xagga safarka Kenya loo baxayo gaariyaasha u baxayaan Kenya yaa xoogaa cawanayaan oo anagana aan raaci lahayn safarka asaga meesha xuduudda iyo wadanka macnaha galitaankiisa inay dhib badan tahay dadkina waa dan oo cid waliba macnaha inay u baxdo meesha way jeceshahay oo dadkooda baa ka jiraan anagoo dhan inaan u baxnaan jecelnahay caqabadda marka meesha ka jirta waxay tahay inay macnaha dadka ay bixi karin oo wadada xuduudii ay macnaha adag tahay bixitaankeeda gaariyaashina ay ku adag tahay macnaha inay baxaan dhanka kale gudoomiyaha gaadiidleyda isaga talaabto dalka Kenya iyo Soomaaliya ee gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaa ka warbixinaya saameynta ay ku yeelatay doorashada madaxtinimada dalka Kenya isu socodka gaadiidka labada wadan walaashaad maxamed dareemaya saddex maalinkii loo baa uga bixisay haddana 3 bari buu taagay intaasna waa doorashada darteed xuduudka xiran qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta ee ku xirnaa dalka Kenya ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay hakadkan ku yimid qudaartii kaga iman jirtay dalka Kenya saameyn ballaaran bay nagu yeelatay meeshay 10 ka ahayd waxay tagtay 18,000 xuduudkii waa la xiray had wax fiican oo inoo imaada ma lahan qudaartii dhammaan saameyn ballaaran bay nagu yeelatay waxyaalihii dhammaan noogu iman jiray wadanka Kenya way naga xirmeen qudaarta inoo iman jiray sida baradhada noogu iman jiray kaaroodka noogu iman jiray raqiga noogu iman jiray waxay noogu iman jiray toonka sida xawaajiga wax badan baa inooga iman jiray laakiin hadda wixii dhan ma imaadaan intii yaroo marka hore keedad ku jirana sare u kacay keenan aad u kaceen saameyn ayay nagu yeeshatay macnaha baradhadii way nagu qaaliyowday saameyn oo adag aan dareemeynaa walaas aan dareemeynaa insha Allah biidnillah waxyaabo badan ayaa nooga soo galaa anaga dan nooga ma jirto insha Allah hakadka wallahi horta saameyn aad iyo aad u weyn ayaan ka qasayna macnaha saameyn anaga taas dan nooga ma jirto aad iyo aad u weyn aan dareemeynaa xagga sida baradhada oo kale sida qudaarta xagga Kenya doorashada inkastoo aad iyo aad ay u socoto labada in aawad ka wala gudbi karin xuduudkana seerka uu xiran yahay wallahi wax weyn baa u dhaxay saameyn weyn marka hore waxaan ku qaadan jirnay 3,000 ilaa 4,000 ilaa 7,000 haddana waxay tagtay kiiladii 17,000 ilaa 19,000
والله زائد بينه وإيمان سامين بدن أنا وإيمان سواي ماشي مركز ترى قفك ستي أنت طبيعي أو مركز تري وكا عرايا ويوقع عرايا وقاري وكلية. si kastaba ha ahaatee isu socodkan ganacsi ee ka dhaxeeya dalka Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan gobolkan Jubbada Hoose kala dhaxeeya dalka Kenya ayaa waxa uu hakad ku yimid kadib markii ay bilaabatay doorashada madaxtinimada dalka Kenya iyadoona dadweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo ay si weyn u hadal hayaan doorashada madaxtinimo ee ka soconaysa dalka Kenya. Sabir Abdulqaadir Rusam Sabir Honesty Telefishinka Somali Cable Kismaayo.